السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wacan wanaagsan saaxiibayaal soo dhawaada meel walba dunida daafida ka joogtaan. Waxaan idin rajeynayaa inaad caafimaad qabtaan oo nabad qabtaan. Inta xanuunsan Allah ha caafiyo, sariiraha saaran wixii dhibaataysan ee walaalihii reer Gaza ugu horeeyaana inta Allah ka dulqaado. Qisadeena maantu waxay ku saabsan tahay wiil iyo gabar Soomaaliyeed oo ku noolaa dabayaaqadii sideetameeyadii iyo horaantii sagaashamaadkii gobolka Shabeellada Dhexe gaar ahaan magaaladiisa Balcad. wiilka iyo gabadha waxaa lagu kala magacaabaa Mahdi iyo Aamina amba Aamina iyo Mahdi ka doontaba horreysii waa isla halkii uu Aamina iyo Mahdi waxay ahaayeen jaar waxay ahaayeen iskuul laakiin aad iyo aad bay u kala weynaayeenoo 8 sano wiilku ka weynaa. sidaad ogtihiin dhammaantiinba da'da ragga iyo dumarka farqi baa u dhaxeeyo gabadh aad 20 sano ka weyn tahay baa la moodaa inay ka weyn tahay ambayna isla egtiin baa la moodaaba. marka da'da dumarka iyo ragga farqi baa u dhaxeeya oo aan wax Ilaahay garan karo. wiilka iyo gabadhaasi jaar bay ahaayeen walaaltinimo iyo asxaabnimo iyo xiriir wacan baa ka dhaxeeya. xiriirka ka dhaxeeyana wuxuu ku salaysnaa kaliya walaaltinimo. isku xaafid bayna ahaayeenoo meel hal xaafad ay wada deganaayeen. habeenada ka mid ah xilli roob da'ayo ayaa magaalada Balcad waxa lagu qabanayay riwaayad tiyaatarka magaaladaas lagu qabanayay. Soomaaliya waqtigii dawladda dhexe ay shaqeynaysay ee Soomaaliya madaxsanayd ee dawladdu ay awood lahayd tiyaatarada magaalooyinka waxa lagu qaban jiray riwaayad si live oo baxaysa oo si live dad Soomaaliyeed ay u jilayaan tu la daawanayo oo khadka laga daawanayo ama baraha bulshada laga daawanayo maaha waa riwaayad si live loo jilayo oo wiilal iyo gabdho Soomaaliyeed ay jilayaan oo hadba waaqac jira laga sameyn jiray. inkastoo khaladaad ay jireen oo wax ka hor iman diintu ay jireen oo isdhexgalka dumarka iyo waxyaabahaas ay qalad ahaayeen laakiin xagga kale waxay ka fiicnaayeen dhaqanka iyo suugaanta iyo kuwaabeynta iyo waaqaca kulba laga jirayo. marka habeenkaasi riwaayadaas ay soo galayso dadku aad bay isugu wada sheegeen habeenkaas dadku aad bay meesha u yimaadeen. fiidkii hore ayaa wiilkii Mahad ahaa gabadhii Aamina gurigooda ku soo garaacay wuxuuna ku wargeliyay in caawa ay soo galayso riwaayadii uu sugayay. waxay tiraan istiyaariyo wiilku gaari buu wataa gabadhii uu ka laabtay wuxuu doonay 2 tigidh oo ay hadhow toole ku galaan riwaayadda. 2 tigidh markuu soo goostay ayuu gabadhii ku soo laabtay iyadoo diyaar garowday oo diyaar ah. baabuurkii bay wada raaceen goobtii riwaayadda ka socotay ayay tegeen. waxay yimaadeen goobtii oo dad tiro badan joogaan oo dadku aad iyo aad ay ugu riyaaqsan yihiin bandhiga iyo riwaayadda habeenka la soo bandhigayo. dadka qaar tigidh dhamaysigan oo dibadda laga celinayo albaabka ayaa laga celinayo tigidhkiina aabe baa lahaa qaarna hor ayay ka galayeen. nasiib wanaag Mahdi iyo Aamina waxay nasiib u yeesheen inay galaan maadaama wiilkii Mahdi oo tigidhada u soo jaray. markii riwaayadda ay dhamaatay ayaa wiilkii Mahdi gabadhii wuxuu u kaxeeyay meel magaalada banaankeeda ah oo goobaha danta guud loo yaqaan ahaa. dawladda Soomaaliya waxay aad ugu wanaagsaneyd wadooyinka iyo magaalooyinka iyo waxa ku dhex yaalay meelo loo yaqaan dan guud oo aan cid lahayn oo dadka ka dhaxeeya iyo beero lagu nasto. marka meel aad u qurux badan oo beer ah oo loo dalxiis tago oo dan guud ayuu gabadhii u kaxeeyay. isaga waxba ka dhex guuxaya oo sababta uu gabadha meesha u geenayay wuxuu doonayaa dareen qalbigiisa buuxiyay oo maalmaha baa u qarsanayay sanadahan baa u qarsanayay inuu gabadha Aamina ku wargeliyo. balse gabadha Aamina waa qabar maanta waxba uma warhayso. markii la tagay goobtii ee xoogaa la wada fadhiyay ee sheeko walaaltinimo iyo isbaridii sheeko caadi la dhammaystiray ayuu wuxuu ku yiri wiilkii walaal
aamina ma og tahay inaan aad kuu jeclahay ereygaas ayuu ku yidhi gabadhii kamay waalinbe waxay ku tiri aniguba waan ku jeclahay oo marka iyadu waxay uga jeedaa jacaylkii walaaltinimada ahaa ee ka dhexeeyey isagaa waxaysaa wata oge oo damaca gubaya oge wuxuu ku yidhi anigu si dhabaan ku jeclay walaal jacaylkaas sheegaysa ma aha kii dee baan ku jeclahay mustaqbalka la iska rabay ee weynaa markaasay ku tiri dee ma aniga kaygu riwaayadii dee mayna walaal aaminaysaad moodaysa maahayn anigu jacayl dhaba oo mustaqbal iyo guur iyo ku dambeeyaan doonayaa kii baan u jeedaa dee fahan macnaha markaa gabadhii qaadin waaba arrintaas ku noqotay kamay filayn in mahdi jacayl walaalnimo wax dhaafsan uu ula imanayo walaalkeedoo kale ka dhigatay wuxuu ku yidhi walaal inaad iga ogolaato inaan doonayaa codsi bay inay iga tahay aad baan kuu jecelahay in badan baan kaa qarinayay fursad noocan aan raadsanayay oo aniga caawa kuu sheegtay walaasibka iga degay aday arrinta ku taalla waxay ku tiri arrintaas kadis bay igu tahay inaan ka soo fikiraa soo ma fiicna wuxuu ku yidhi hawraarsan wakhtigaada qaado intaad doonta ka soo fikir haddaan noqdo nin u qalmayn la jeclaadana waa si wanaagsan iga aqbal haddii aan kula noqon waayana ikhtiyaarka adigaa leh gabadhan waa gabadh barbaara oo 20 sanaba aan gaadhin oo 18 19 meelaha maraysa jacayl iyo waayihiisa iyo madax xanuunkiisa iyo stresskiisa weligeed ma soo marin raaxadiisa iyo wanaaggiisa iyo haasaawiisana may arag magacun bay ka maqashaa jacayl magaciisun bay maqashaa haasaabo badanna ma ayna samaynin wiilka haddee iminka u sheegtay jacaylka sheekadii walaaltinimo mooyaane wax dhaafsan may dhex marin muddaa la kala maqnaa habeen isniina oo jawigu aad u qurux badan yahay oo jawigu rooban yahay ayaa wiilkii mahdi isu egyihiin iyo aamin waxay ku kulmeen goob laga raaco oo laga kiraysto baabuurta tagsiyada ah iyadoo gabadhii soo sagootisay gabadh ay isu galaas ahaayeen oo markaa meel tegaysa wuxuu ku yidhi aan idin sii qaada labadiinna halkay doonaysana han gaadhsiiye gabadha marka wuxuu doonayaa hadhow markuu gabadha meeshii la doonaya gaadhsiiyo inuu gabadhan dee jaanis ku helo oo warbixintii iyo jawaabtii uu ka helo haye bay idhaahdeen gabadhii iyo walaaladii gabadhii iyo saaxiibadeed buu kaxeeyey gabadha halkay doonaysay bay ku degtay markii gabadhii gurigoodii laga soo noqday ee meeshay doonaysay iyo muraadkooda la gaadhsiiyey ayaa waxaa gaadhigii keli ku soo noqday mahdi iyo aamina wiilkii wuxuu gabadhii u kaxeeyey meel magaalada ka baxsan sidii maalinkii hore oo kale dadka qaar baa ka jecel meelaha yar bila buuqa ee dhirta leh ee quruxda badan leh inay dee arrimaha ku kala goostaan oo hadday jacayl sheeganayaan iyo hadday arrin ka watashanayaan meelaha magaalada ka fog dee arrimahooda ku dhammaysta markaa wiilkani wuxuu ahaa wiil khajlaad badan markaa wuxuu doonayay in gabadha meel dadka hortooda iyo meel buuqa iyo inuu wax ugu sheegto ka xishoonayay markaa wuxuu islahaa bal adi meel aad gabadha jawaab waafiya ka heli karto jawiguna xasiloon yahay kuna habboon yahay bal gabadha isla tegay inkastayna fiicneen in wiil iyo gabadh isla kaliyeystaan oo shaydaanku uu saddex ku noqonayo wiilkii mahdi iyo aamina markay xoogaa socdeen ayay tageen goobtii oo ugu talagalay ninkii mahdi ahaa inuu gabadhaasi alcaawa oo warbixinta kaga soo qaado markii xoogaa la wada sheekaystay ee laiswaraystay ee laisbariidiyey ayuu wiilku yidhi aamina maxaad iga haysaa codsigii iyo jacaylkan ku soo bandhigtay maxaad iga haysaa gabadhii aad bay u naxday waayo waxaa u saamixi waayey
ugubnimada jacaylku ku cusub yahay iyo haasaawuhu ku cusub yahay ayaa u saamixi waayey inay markiiba tiraahdo waan ku aqbalay iyo waan ku diiday. markay cabbaar amba xoogaa aamusnayd ay hal mar tidhi intuuna jawaabin buu ku yidhi, intayna jawaabin ee aamusnayd ayuu ku yidhi, miyaan walaal u qalmin inaan ku jeclaado, adna maanad u qalmin inaad iga aqbasho. mar kale ayay gabadhay nahay oo ereygaas qalbigeeda ayuu saameyn ku yeeshay. waxayna ku jawaabtay, waad u qalantaa walaal Mahdi, waanan ka aqbalay. habeenka taariikhdu waxay ku beegnayd dabayaaqadii sagaashamiyadii. waxay ku beegnayd habeenka la isku sheeganayo, habeenka hore u sheegtay iyo habeenkan muddo usbuuc ama 2 usbuuc u dhaxaysa. habeenkan dambe ee jacaylka ka aqbalaysana waa dabayaaqadii dhammaadkii sagaashamiyadii, 80-meeyadii cafwan. maalinkaa laga bilaabo ilaa laga gaadhayo 1dii bishii 2aad 1990kii waxay labadaa gabadh, wiilka iyo gabadhaas waxay ahaayeen dad farta lasugu fiiqo marka jacayl laga sheekeynayo, sidaa hebel iyo hebel ay isku jecel yihiin. tusaale loo soo qaato, tusaalaha jacaylka noqday magaaladooda waxay gaadheen heer mar walba labada qof ee arkaaba hebel iyo hebel baa haa is jecel yihiin, dadkoo dhanba ay ogaadaan. waxay xaaladdu sidaa ahaataba waxaa dhacday dhibtii weyneed ee Soomaaliya ku dhacday. dowladda dhexe burburtay, burbur kama dambaysaa dhacay. meel walba dagaal baa ka bilowday, dagaallo sokeeye oo ahliya. madaxtooyadii baa burburtay, madaxweynihii baa waddanka ka baxsaday, qabiil baa loo kala saftay. magaaladii Muqdisho ee caasimaddii iyo magaaladii Balcad iyo dhammaan magaalooyinkii waxay noqdeen magaalooyin loo kala degan yahay qabiilo oo qabiil isku leenayo. qaybta koowaad intaasaan kusoo afmeeraynaa. weliba markii uu dhacay qaxi wuxuu saameyn ku yeeshay jacaylkii taaba galay ee tanaaday ee Aamina iyo Mahdi wayna kala lumeen. oo qaxi dhacay iyo dagaalkii sokeeye ee dhacay wuxuu saameyn ku yeeshay jacaylkii Mahdi iyo Aamina. way kala lumeen, nin walba qoyskooda iyo qabiilkooda meeshay u guureen u qaxeen ayuu raacay, wayna iswaayeen. qisada qaybta dambe waxaan ku soo bandhigi doonaa, waan kaga sheekayn doonaa, waan ku arki doonaa siday u kulmayaan, goormay is heli doonaan, xaalad noociyay ku iman doonaan, ku kulmi doonaan. marka qayb dambe aad u xiiso badan weeye oo aad iyo aad dadka qalbiga jilicsan lana aad bay u qiiroon doonaan oo aad bay u ooyi doonaan. dagaaladii sokeeyana saameyn weyn bay Soomaalida ku yeesheen, qoysas badan bay kala lumiyeen, dad badan baa iswaayey, carruur iyo waalidkood baa iswaayey, dad isjeclaa sida Mahdi iyo Aamina iswaayey, dad mataqaanaa ehel ahaabaa iswaayey, dad asxaab ahaabaa iswaayey, dad badan baa iyagoo xataa adduunyada ku nool oo aan midna dhiman midna noolayn ayaa iyagoo nool iswaayey. dadka qaar baa eheladoodii ku waayey oo bartaa ku baxeen. marka qof waliba oo dagaalkii sokeeye dhibaata ku gaadhay, Ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u gargaaro. marka qaybteena koobaad waxay noogu joogaysaa caawa iyadoo ay iswaayeen Mahdi iyo Aamino dagaaladii sokeeye sababtood. intaan qaybta kale ku kulmi doono, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.